wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari musafadana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyaa lay leedahay si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan waryaa reegeed fadhi maxaad isu keentay weligiin muran waa la imaan jirteen anoo fariisa markaad su'aal weydiinaysid horta adigu maxaad ahayd war adeero idinkuba cirna ma joogtaan dhul lama joogtaan warqowda naga raalli ah wada hadallada Soomaaliya Soomaaliland weli ma furmine war cid walba geed harsatee geed fadhi ninka leeyahay waa nin ma waryaa waxaan idin su'aalayaa Soomaalidu waa shirtaa mana heshiiso maxay isugu sheegaan shirarka horta adigu weliga su'aal ma ahana tala ma keentid miya war wax kasta waxa iga daran lacagtu ninka weydiinayo waxbaha wareerin Soomaalidu waxa la yiri labada ay ka sheekeynayaan kama shaqeeyaan war sidaas baana Soomaalida hore waxa loo yiri hogaankiisa waa ee salaaqom halaagsamay ilaahay nagu soo celiyo war halaagiisa bama ka hadloosa war riyaha wareerine Muqdisho Hargeysa maaha war saas maana waxa la yiri been macallinkii dhiga ardadu waa ka bartaa adeer fardan la soo hayay leesma faaniyo war gabay ma taqaantiina waxa la yiri kooxdii fashilanta shaqada kama fariistaan war saas maana waxa la yiri kala keen ahaw ama tala raac ahaw warnimay warmaysaane ana kasbaa waradin kaga haya dhawaanta waati halkaasi madaxweynaha badan lagu doortay hadda Axmedow maanta wuxuu la kulmay erga ka socotay madaxweyne xidig madaxweyne Seerar war xuduudaha kismaayo ma isku haystaan maxay tahay ergada war daraadna waxaan maqlayay madaxweyne xidig oo madaxweyne Seerar madaxweynenimada ugu hambalyeynayay maantana ma waxaad noo keenteen madaxweyne Axmed Madow madaxweynayaashii kale tooji balaan erga ka socota la kulmay war maxaa ku diidaysaa inay kulmaan hal magaalo ay wada joogaan walaal Soomaaliland baa soo hambalyeysay madaxweyne Axmed Madow ee wareerina war Seerar Minnesota lagu soo hambaliyay warada arrimaha Jubbaland oo ku wareersantiin waxa ka hadlay wasiirka hore gaashaandhiga Barrehiiraale xalay war Barrehiiraale 7 sano kismaayo xukuumay oo Axmed Madow ay ku diray markii uu dambeysay lagana soo tarxilay Soomaan war hanala waalan dhayaysa waryaa waraysi radio kulmiye uu siiyay wuxuu ku yiri kismaayo anoo musharaxa aadi maaye anoo mujtamaca ku nool badbaadinayaan aadaya mid kale dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa buu yiri inaysan xuduudka Kenya ay dhagaxda dhigayso iyo badda ku mashquulin doonista dadka Soomaaliyeed waa NFD Kenya iyo Ethiopia dadka Soomaaliyeed dan uma wadaan waa dhacayaan dalka hal iska dhiciyay war Jubbooyinka warka ma haysaane xalay toolacirka looga soo dhacay shabaabkii deganaa Jubbada dhexe hawiisooda baa la kiciyay war miyaa laga dhex toosay maya waa la toosiyay ayagoo hurdaya oo salaasu waxa loo kicinay miya war gantaal salaad la isugu ma kiciye nimanka amiirre iyo saraakiila laga dilaalay war ma haysaane maamulka dhuusamareeb waxa isku haysto dawladda iyo ahlu sunno war maamulka dhuusamareeb la isku haystaa degmadaas maamul walaada waxa la isku haysto waa masiirka galmudug marka ma waxa la isku haystaa galmudug madaxweyne Macalin Maxamuud ka soo baxay iyo madaxweyne Xasan Cali Khayra ka soo baxay war ma waxa la isku haystaa madaxweyne Tusbax iyo madaxweyne Suud war xageena la biqlaysan horta ma la dhageysta magaalada dhuusamareeb waxa gaaray diyaarad hubsida oo uu la socdo wasiirka amniga iyo saraakiil ka soo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM marka xaaladda dhuusamareeb ma sahlan oo waa allo sahal war adinku balaayadan aad warisaan xagee ka heshaan guddigii dib u heshiisiinta galmudug waxay yiraahdeen labada bari oo soo socota shirku furmaya ra'iisul wasaare Khayraana furaye war guddiga naftiisa dib u heshiisiin u baanaaye ma la heshiisi war qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed dalka waxay yiraahdeen ciidamada dhuusamareeb oo amniga lagu sii gurayo xamar baa u baahan waa maxay danta laga leeyahay war xamar waxa ciidan u ah askari jiifiyo dhagax war xamar waa xisaabadeer xarar dheerana waa xoog war ma haysaane taliya naqal soo xilkii laga qaado wuxuu yiri war xilka laga ma qaadan muu yiri war naga joog ma dhihine wuxuu yiri muddadii aan xilka hayay waxaan sameeyay qorshayaal badan oo uga hortagna qaraxyada al-shabaab ay soo abaabulaan afar buundo ay ku soo gudbug jireen hubkana waa qabanay buundada janaalana ana u soo xilka laga qaaday weerarkii oo dhaglan sida uga hortagna si la yaab la ayay ahayd oo hadda ka hor 3 goobood ay AMISOM uga soo duuleen ayay ku guuleysay inay hub iyo risaas badan ka furtaan dad badan ku laayeen xariyan ay qabsadaan laakiin anagu waa ka hortay
sheegna waana muujinay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay shabaab iska celin karaan. war taliyaha hadalkiisa warkameysida wuxuu yidhi 2 sano gudaheed ciidanka xoogga 5 taliya soo martay walba hadeerooda waa fursada la siiyo. warnimayo magacyada gabdhaha Facebook sanadahan dambe sida isku bedelayeen baa la ogaaday. haye cajiiqas ka bilow. war 2016 waxay ahaayeen xijaabku waa qurux. 2014 waxay ahaayeen dhowrsan sida shiiqada. 2015 quruxsan sida hooyadeed. 2016 cidda cajiinka gabadhooda. 2017 princess quruxsan. 2018 abawey soo booqano. 2019 idin kale waayno. war nagala tag magacyada sheegaysa anaga nama soo gaarin. war adeer war ma haysaane caar taliyahaygi Somaliland waa u jawaabay wuxuuna yiri wada hadalkii waan hakinay bataatan marka waxaan u malaynayaa qoladan aan jaarka nahay inay ka dhaxlayaan. war waxa la yiri siyaasadaha jira iyo murtidu ma aha saaxiib suugaan maxbuus ay rabaan inaad samaysaa. war yaa ku yiri suugaan maxbuus samee adiga. war waa la sameeyaa